هذا اللي جوابتي أيضا يرتا غير أوضل أي سوق جوابين أو حكمة كجرتو قرن ما يوايل كي محل عي مية نوليين مية دنتين مية لقفاشي مية عظيم حي هذاني بابيهين طلوا سيوحوا جيران إلههم باقران dhalinyartan baa la arkaa oo la xidhaya oo la haraas garaynaya oo dhibaato loo geysanaya marka maxay ahayn bal dadkii waaweynaaye dhulka iyo wax walba oo hadli lahaa ma jiraan way hurdaan hatta wax wanaaga kuma hadlay hatta waaba waxaanu noqonay booli qaatayaale hatta male waxaan jeclaan lahaa dadka waaweyn ee maxay ahayn namatala ee aabayaasha noo ah ambana dhalay amba talada noo daaya oo hadalka daaya oo buuqa daaya aad meelaha ka hadlaysaan amba waalidadii ka noorka daadiina khalaas dad waaweyn baatiin dalka waxa weeye waxa uu halayo waa annagana hanasi maxay heedaanay waxaan maqli jiray orgiga marka amba wanka baraarka iyo waxaas marka la rabo amba orgiga marka riyaha in laga reebo la rabo waa la tumaa waa la xiniya laga tumaa marka orgigu riya dambe ma raaco qoorna ma noqdo madaxana ma taage saasuu u foorasay hal xiniya tumina oo yaana sida uu foorin oo khayrka yaanaan aanu ka hadhine marka qof kasto weyn oo dhageysanaya maxay ahayn sayla media ka dhageysanaya waxaan leeyahay oo aaba maanta noogu toosan hadaan dhalinyartana oo dibadda jooga amba wadankii ha jooge waxaan leeyahay waadna gabteen yaani taariikhda idin galin ayaana buuga leedin ku qorin yaana maxay ahayn annaan oran qarniga markaan joognay aabayaashay wayna gabeen dhulkiina iyaga naga bixiyaan saadan waa kan dhalinyarta hadda hadallada ka soo baxaya dhalinyarta u fiirsada waxaad moodaa inay ka soo baxayaan dad waaweyn oo 70 jir ah say dhalinyartu u tashanaysa isku jawaabayaan mid baa wuxuu yiri gobol lowdan diidaye hagumowda saakhe garab raratada baas anoo gala xabaaliyo waxa daanta geerida go'aan waan gaaray ma wax la garwaaqsada markaasuu ninka saaxiibkii ahaa dhalinyarta reer awdal wuxuu ugu jawaabayaa hadduu galow dhawaaqo hadday nabadi guurto hadba waxa kula gudboonba duni lagu garama waa dhalinyarta iskugu jawaabaysa aniguna waan codeeyay laxankii baan saaray soo dhacaysay horeyna waxaan u yiri waaga dalatu waa noo bariyay wadankana hana noo wada ciidnay dhamaan qalan yahow wacani weligaa dhisnow wadankayga iyo wadartiya bulshada wehel baad u tahay waanay kugu farxaan qalan yahow wacani weligaa dhisnow weerarkaan qaadneen geesiyada ku weynay sid waxaana leewaadi waana kugu samirnaa qalan yahow wacani weligaa dhisnow erayada caynkaas ma waxa la oran karaa rag waxa tiriyay 20 jir marag 30 jir tiriya la oran karaa marag 35 jir tiriya la oran karaa no waxa la oran karaa waxa tiriyay rag 70 jir kuwa iyaga waaweyn haday hadlaan maxay noqon lahayd hadalka yiraahdaan wuxuu noqon lahaa hadal cadowga gabigiisa ruuxa walaaltinimada iyo wanaaga diiday hadal dila ayuu noqon lahaa waayo waa dadkiina dhalay ayagaanu ka dhalan hadalkan iyo geesinimadan iyo wanaagan waxaanu kala niminay iyaga marka maxay ahayn insha Allah waalidadoo dhan ma jeclayn inaan waalidkayga wax u sheego ma jeclayn laakiin waan xajin kar waaye mar maaha laba maaha saddex maaha afar maaha way tiradii ka badatay marka waalidkayga aan wax u sheego qalad hay qaadanin dhulka naga bixin intaan baan ku leeyahay waxaan hadhow toole ka bixi karayn iyo xarigaan ka bixi karayn hanagu xirxidin xeraha noo gelinin saasaan idin kula dardaarmaya xeraha noogu xidhin xeraha ka bixi karin hadhow hadda hanagu xidhin okay qaabkaan ugu codeeyay ayaan maxay heedaanay aan idinku codeynaya waad aragtaan dhalinyaradeeda halkaan joogo waa adduunka halka ugu dambeysay ayaan joogaa kuwa kale waxay joogaan halkii koonaheeda kale joogaan marka iyaga dharaarta anaga waa noo habeen haddana waa kaasaan iskula xiriirineen isku ognahay iskaga warhayna hadba tallaabada xagay socoto iska daa hadba tallaabo la qaadee hadba isha la gibirsado ayaabaan maxay heedaanay qaabka loo gibirsaday waxa loo gibirsaday waxay ka socotay waxay ka hadlayso dhanba aan maxay heedaanay isla ognahay وطن قاعدين فوق هذا يضان ذيك عضيني وحودي وبقلو دانتي ديه
هجمود الساكي كربرة تدابس أنا قال حبالي وحدان تجيري دا هجمود عندي ذي هجمود الساكي كربرة تدابس أنا قال حبالي وحدان تجيري دا وأنوابن قاري موحلا كرواصدا وأنوابن قاري موحلا كرواصدا ويلك كلو حوق جوابيا هدو قلو تواقي هدو قلو تواقي نبادي قورتي هدا وحا كلا قدبون بادوني لغو كراما هدا وحا كلا قدبون بادوني لغو كراما هدو قلو دواقي هدو قلو دواقي هدا نبادي قورتي هدا وحا كلا قدبون بادوني لغو كراما هدا وحا كلا قدبون بادوني لغو كراما دوني لغو كراما دوني لغو كراما إلهنا كرب كلا داوين وراشد السلام عليكم ويتلقي من